tan guys sida u dhantiin meel kasta aad dunida ka joogtaan macal asaf xaal waa yara taraaraxna inkastoo oodiskeenu uu aad u badnaa maanta oodiskeenana wuu fiican yahay oo $4 ku dhawaad waaye $3 bar ku dhawaad waan dhahe kooxaana waa 7 koox dhammaanna waxay ku saabsan yihiin maxaan ku yiraahdaa UEFA Champions League wax ka baxsan kuma jiraan marka shaxdeena maanta waa isla fiirinayna asxaabay waa isla fiirinayna marka isla fiirin waxba ka soo baxayo marka horta waxa ugu horeyso horta koox ka awood badan horta la dhihi karo horta ma jirto Napoli xal waxay Ajax ku dhigtay waa aragteen oo dad badan ayaa qabay in Ajax xal ay badi karto inkastoo annaga ku saadaalna post team to score win noo soo baxay laakiin 6 gool in looga badshay ininka marxaati ka aha 6 ay ku dhamaatay ciyaartaas المهم marka maanta ciyaarta waa isla fiirinayna waxa ugu horeeya caawa 10ka habeenimo waxa soo gali doona ugu horeeya Chelsea iyo Milan runtii waa laba koox oo awood badan Milan oo ka dhisan Serie A iyo Chelsea oo ka dhisan horyaalka Premier League xaqiiqda Chelsea gurigeeda joogtay Milan away waaye marka ciyaartan guud ahaan inkastoo dadka qaar ay qabaan in Chelsea badi karto laakiin ciyaar kulay waa qalbiga Barcelona xalay yaa isdhahay Barcelona laga badina dad badan ayaa xalay ku qasaaray Barcelona taagtadii kale waan laga badiyay Inter Milan ka badasoo la tabcaan waay marka koox saaxiib tabcaan ma jirto laakiin qof kasta nasiibka ayaa saacida marka almuhiim Milan handicap isticmaalay tan Milan caawa in aan looga badi karin laba gool ka badan labadaas oo qoys ku jiro 3 gool ay u dhigantaa laakiin laba hadii looga badso reform ay helina saas laga wada marka guud ahaan Milan in caawa looga badi karin 2 gool 3 gool iska dheh 2 gool hadii looga badso gun toos waa laakiin hadii 3 looga badso reform ay helina marka saan ku qiimeynayna tan xigta waa Juventus iyo kooxda Maccabi Haifa ku qoran tahay horta tan wargelmayno Juventus awood ay leedahay marka inkastoo waxa ciyaar yihiin laakiin fikirkeyga iyo shax guud ahaan marka isku dardarsada waxa ay soo baxday Juventus caawa inay badi karto marka Juventus wargelmeen way badinaysaa insha Allah way badinay Manchester City iyo kooxdan Copenhagen ku qoran tahay meeshan meel laga raacmo balenbo City way badinaysaa hadaa dhahno regular time-ka ku geeyna regular time-ka City hadaa dhahdo way badinaysaa waxa arkaysa 5 senti saaran kooxda kale maxaa saaran $58 ma cadadna wala xisaan subhanallah ay double chance-keeda waxa saaran $13 iyo bar marka meel laga raac malaha marka waxa ila qiimo badnaata ama ila qurux badan ina dhaho 1/2 post team to score no Chelsea had difaaceedkeeda Manchester City has hab difaaceedkeeda aad u wanaagsan yahay wuu sareeyaa Copenhagen umalay maayo away inay City gool ka dhali kartay lamaana 1/2 marka sida Bayern Munich oo kale laga caawanay 6 ama laas ugu badiso marka post team to score no ayaa nooga qurux badan ayaa nooga fiican waan 12 senti soo soco Benfica iyo Paris Germany idan handicap isticmaalayna waxaan waa banooni ogaada hadda asxaab qaar waxay qabaan Paris badi karto waxaan kubadan waa cad iyo madow cid la dhigi karto soo badinaysa ma jirto marka handicap isticmaalay taasoo ah in Benfica looga badi karin 3 gool oo toos ah tusaale ciyaartan haday ku dhamaato 3 ciyaar haday ku dhamaato adiga waxa tahay wun 3 ciyaar haday ku dhamaato ciyaartan waxa tahay wun hadii la 3-0 ay ku dhamaato waxa tahay loss laga wada laakiin 3 Benfica 3-0 iyo Paris Germany aqaan ugu badi karto ila ma ahan marka Benfica gurigeeda joogto waa koox adag runtii marka gudaha ciyaarta ku saadaalnina 3 gool in aan looga badi karin Benfica soo soco Real Madrid iyo Shakhtar Donetsk tan kulay anid waxaan hay 90% in Real badi karto waan qabaa Real marmar ay ku fto halayaab laakiin Real kooxaha waa kooxda Champions League uu qaadista badan horta waa kooxda ugu cadcad waa koox runtii championka aad ugu xoog badan marka Shakhtar Donetsk ay naqaano Real hadda lama ahna barrage ku celi karto
marka guud ahaan ciyaarta waxaa leenahay Real Madrid caawa toos ay u badinaysaa. waxaa kaloo ku soo xiga Sevilla iyo Borussia Dortmund. Sevilla iyo Borussia marba si waaye, mar way xanuunsantahay marna way fiican tahay, laakiin Borussia inay badaysaa la rajeynaya, laakiin iyadan naftirkeeda waxaan isticmaalnay handicap ah Borussia Dortmund in looga badi karo 2 gool oo toos ah ayaa leenahay. waxa ugu dambeeya noqonaysa Salzburg iyo Dinamo Zagreb. kooxdani waxaa leenahay Salzburg double chance barrage and badis inay barrage geli karto ama inay badi karto. marka koodkiina waa kaasa. marka guud ahaan shaxdeena halkaas ayaan kusoo afmeeraynaa. marka saaxiib adiga badbedeli kartaa haddaad Manchester City oo kale jeceshahay inay dhahdid waa badi waa dhihi kartaa, Paris oo kale waa dhihi kartaa, laakiin muhiimada shaxda muhiim ah. marka waanan guuleysanaynaa, guul baan idin rajeynaa dhammaantiina.